daba dheeraatay kadib waxaa meelo badan oo ka mid a waddanka bilihii ugu dambeeyey ka da'ayay roobab lagu diirsaday waxaana beeralayda qaarkood u suurto gashay inay dib u bilaabaan qodashada beerahooda oo halbowlo u ah nolol maalmeedkooda laakiin waxaa jira deegaano dadkii beeralayda ahaa ee ku noolaa aysan qodan karin iyadoo sababtu aysan ahayn roob la'aan ama abaar jirta sababtu waxay tahay beerahooda waxaa saldhigyo ka samaystay ciidamada nabad ilaalinta ee amisom dadka iska leh beerahan waxay VOA u sheegeen in beerahooda loo rogay saldhigyo militari goob colaadeed taasina ay burburisay qaab nololeedkoodii ku dhisnaa beer falashada qolooyinka amisomta yimid dhulka bannaan dhul beereed buu ahaa qolooyinkii kalaa ka baxay ayagaa soo tegey waxay isu bedeshay xere ciidan geedmiroodka iyo dalagyada meesha ku baay waa wax inta ay deganayeen baay way wax taagan hadeer oo la intifaacsado ama meel ay xoolahoo dhaqaan ma laha beeraha badankoodu waxay ku yaalaan nawaaxiga degmada qansax dheere ee gobolka baay xildhibaanada deegaanka ka soo jeeda waxay sheegeen inay dhan yihiin beerahaasi 180 beerood balse baaritaan gaar ah oo aan samaynay waxaan ku ogaanay in beerahaasi ay gaarayaan 120 beerood sida ay noo sheegeen dadka deegaanka waana dhulbeereed aad u weyn oo ay ku tiirsanaayeen boqolaal qoys islamarkaana anfici lahaa dad intaasi ka sii badan haddii la beero waxaan haddaba waraysi la yeeshay qaar ka mid a dadka beeraha iska leh cabdikuus xaaji ibraahim waa 46 jir beertiisa ka dhaxlay aabihiis waxaan weydiiyey tilmaan inuu ka bixiyo halka ay ku taalo beertiisa iyo xaaladda ay xilligan ku sugan tahay jidka baar dheere aadoo baydhaba ka taga iyo jidka buurdhuba aada inta u dhaxaysa kambaniga hormuud iyo nation iyo samtel oo magaalada gudaha wax kula moogaya xafiisyaha laamiga qarkiisii ku yaala meeshay ka bilaabanaysaa beertaas marka maxaa kaaga baxa hadda beerta waxba igama baxaan 2012 bishii maarta ilaa abtinow maanta hadlaysa wax zarac ahoo ka soo baxay ma jiraan sababtu maxay tahay sababtu waxay noqotay bishii maarta 12 iyo 10 waxay ahayd maaqan qolooyinka amisomta yimid dhulka bannaan dhul beereed buu ahaa qolooyinkii kalaa ka baxay ayagaa soo tegey say u degeen dufeesiye iyo dhul beereedkii waa ka baxay waxay isu bedeshay xere ciidan maxaad ka wada xere ciidan bay isku bedeshay ciidanka degan waakee ciidamada Ethiopia marka amisom ay ka tirsan yihiin waa gartay marka ilaa hadda ma degan yihiin ilaa hadda jeesta aan kula hadlayo waa degan yihiin ciidamada Ethiopia xilliga ay degeen deegaanka qansax dheere waxay dib ugu soo laabteen Soomaaliya xilliga ay ciidamada Ethiopia degeen deegaanka qansax dheere kama tirsanayn ciidamada amisom waxayse doonayeen inay ka mid noqdaan howlgalka nabad ilaalinta taasi oo ugu dambeyn ay ku guulaysteen sanadkii 2014 magaalooyinka ay haddaba xilligaasi soo degeen ciidamada Ethiopia waxaa ka mid ahaa baydhabo iyo qansax dheere waxayna magaalooyinkaasi dib uga qabsadeen maleeshiyada ururka al-shabaab oo gacanta ku hayay waa kan mar kale cabdikuus xaaji ibraahim oo ka warramaya sida beertiisu ay gacanta uga baxday ayaga ka hor dhulka dhulbeereed buu ahaa dalkana qolooyinkii kalaa joogay sidaas baa lagu tabcan jiray muddo hadda 5 sano ah wax ka baxay oo beertaas oo laga soo goostay oo zarac ah ma jiraan dadkii iska lahaa wax barakacay doolow maxaa la dhahay dhaadhaab iyo dalka gudihiisii wax ku barakacay noqdeen baahi iyo duruufyada hadda jira inta dadkan aysan qaban ka hor bayna dadka beeraha iska lahaa duruuftaas ay qaban qolooyinka kale al-shabaab baad ka wadaa ha waa gartay beertan maxaa ka bixi jiray awal 8 nooc oo dalaga ka baxa digir oo dhowr nooc ah gabaldaya galley masaga noocyadaas ka bixi jiray ma ku diideen inaad dhinac ka qodato beertaada ciidanku waa diideen macnaha dhirirka 6 kilomitir dhul aan ku qiyaasay degan yihiin balaciina dhul aan 6 kilomitir ka yaraan isku weeray degan yihiin marka beertii maba lagu dhowaan karaba hadda meel xare ciidan ah in dhul beereed uu noqdana macquul ma noqonaysa ayagina waa diideen marka dowladaha hadda dalka ka jira kuwa ku meel gaarka ha ahaadaan kuwii hore ha ahaadaan waxyaabo badan baan report iyo dacwado u gudbinay wax ka qabtaan la waayay waxa aan weydiiyey cabdikuus xaaji ibraahim inuu la xiriiro ciidamada Ethiopia si uu ugu qanciyo inay ka guuraan dhulbeereedkiisa ma u sheegteen oo ma la hadashay ciidamada Ethiopia iyo saraakiishooda ma lagu geeyo ma la fadhiisatay nimanka marka meesha joogay ninka taliyaha ka ahaa baan u tagnay waa u sheegnay marka u sheegnay dhulka inuu dhulbeereed yahay waa u jeedaa dad baa iska lahaa waa baabaasan yihiin xoolo ma haystaan dhulkaasay qodan jireen ay ku noolaayeen beerihii inaad nooga guurtaan dhulka waa bannaan yahay oo la idiin baneeyo bannaanka inaad tagtaan yaan rabnaadaan idhi markii dambe waxay dhaheen annaga bannaan ma tegayna haddaad ugu soo noqotaan is up to you wixii idinku dhaca idinkaa mas-uulka waa goorma markaasi wallaahi muddo sanad iyo xoogaa ka hor bay ahayd wax badan baan ku noqday markii dambe lafahay in la igu waxyeeleeya yaan ka baqday waa isaga soo tegay carradoo dhanba
waxa uu ii sheegay cabdikuus xaaji ibraahim in dhibaato badan oo ay ugu horrayso cunto la'aan ay ka soo gaadhay maqnaanshaha beertiisa. wallahi hadda nolosheedii baa dhaawacantay, wax kaloo hadda dib oo iga soo gaadhay male. hadda sidii ilaahay yeelay unbay noqon doonta hadduu ilaahay yeelay. imise kiintaal baa ka soo go'i jira awal? wallahi beertu hadda beer yar ma ahan. haddaysan sanadkaas uu macnaha fasalkeeni uu si fiican u baxo, badar fiican baa laga heli jiray, iyo galley iyo sisin iyo loos iyo digir iyo waxyaabo badan baa ka dhici jiray. hadda qiyaas ahaantii celcelis ahaan dhaqaalo nolosheedii aan ku maarayn karaa iga soo geli jiray, laakiin hadda waxba kama hayo. waaga marka noloshaada maxaad ku dabartaa hadda? nolosheeda maxaan ku dibiraa? de soomaalida nin walbo in adeer adaa wax igu dhaan soo tuur telefoonkaasa sidii wax laisku weydiistaa oo hadda wixii naloo soo tuura nolosheena ku maarayna. imise carruuraad leedahay iyo qoysaskaaga? rag iyo dumar 8 ruux, 11 ruux baa aabay uu ka dhintay, wiilal iyo gabdho leh. wixii ay dhaleen wixii ay sii dhaleen haddii la isku daro dad 80 xagga ku dhow iyo wax ku dhow bay noqonayaan. meel aan sidaas uga fogeyn beerta cabdikuus waxaa isna ay beere uga maqan tahay ugaas isaaq maxamed afyare oo ka mid ah odayaasha caanka ah ee laga yaqaano qansax dheere. beertaada yaa haysta hadda? otoobi yuanka meeshi dadan. imise sanay degan yihiin? 5 sano. beertaadu waa imise hektar? beertay waa 30 hektar waaye. xaggee uga taallaa magaalada qansax dheere? dhinaca baar dheer iyo buurug dhaxdood. beertaada maxaa ka bixi jiray ka hor intaysan ciidanka Itoobiya soo degin? 40 gaari 50 gaari yaa ka baxay jiray. oo badar noocee? misige. goorma ugu dambeysay inaad beerta falato? sanadkii ugu dambeysay goorma ahayd? 5 sano qadal soo hisaab 5 sano. marka iyagaa dhex degay 5 sano iyagaa dhex degana? iyagaa dhex degan. sababtu maxay tahay? hadda nimankii UN-ka oo Itoobiya dawladda waa isku degan yihiin unugu meel hadii karnaa waaba ku arsanay unugu baahi baan haysay duurtada iyo meelaha hoorsi iyo waxa ku taabtaabna. ugaas isaaq maxamed afyare waxa uu ii sheegay inay is afgaran waayeen ciidamada Itoobiya isla markaana uusan awood u haynin qaab kale oo uu dib ugu helo beertiisa. ugaasku waxa uu leeyahay qoys ballaaran, waxaana reerkiisa ballaaran ay u xayran yihiin beertaasi sanadkii 5aad, waxaana cabsi gelisay sida uu dib ugu heli karo beer ay dhex jiifaan taangiyo. dadka kale ee badan ee ay beeruhu ka maqan yihiin waxay ii sheegeen inay dacwadooda u gudbiyeen xubno ka tirsan maamulka koonfur galbeed, welina aan waxba laga qaban. laakiin mas-uuliyiinta kale ee dadka deegaanku ay la xiriireen waxaa ka mid ah xildhibaanada u matala baarlamaanka heer maamul goboleed iyo weliba heer federaal. xildhibaan xasan cabdinuur cabdiyo waxa uu ka tirsan yahay aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya, waxaana uu ka mid yahay xildhibaanada ay dacwadda beeraleyda qansax dheere soo gaadhay. ciidamada amisom ee gobolka bay ku sugan khaas ahaan deegaanada qansax dheere waxay degan yihiin degmada qansax dheere, weliba beeraha u dhow magaalada deegaankii magaalada ku hareeraysanaa oo lagu qiyaas ilaa beero 180 beerood oo dhanka galbeed ee magaalada kaga aadan, oo weliba u dhaxaysa labada wado ee magaalada ka baxda, midna aada koonfurta midna aada galbeedka magaalada, ama wadada baardheere dhanka baardheere aada iyo wadada dhanka buurdhuba uga baxda magaalada inta u dhaxaysa oo 180 beerood ugu qiyaasay degan yihiin. nafar waa gartay yaa qiyaastan soo sameeyay 180 beerood dhul u dhigma inay degan yihiin? ma dhul u dhigma mise waa beere jira oo la falan jiray? waa 180 beerood la taaban jiray oo dadkii lahaa la yaqaano oo beer loo og yahay. waa gartay yaa soo sameeyay qiimayntan? dadka deegaanka magaalada degan, odayaasha iyo weliba dadkii beeraha iska lahaa oo cabashooyinka soo gudbiyey rabana inay beerahoodii dib u tabcadaan xilli beereedka la gaaro. weliba ciidamadan waxaa loo sheegay dhowr mar hore ama loogu tagay inay beerahaas dadka u baneeyaan ee dhanka bariga ee magaalada oo aan dhul beereed ahayn, ama wadada ka timaada dhankaa iyo baydhaba ama dhanka awdiinle kasoo gasha magaalada oo aan ahayn dhul beereed ayaa dhul looga baneeyey. shacabkuna ay diyaar u ahaayeen inay xataa u baneeyaan haddii ay rabaan keliya meel banaana oo aan cadowga ama nimanka shabaabka aysan ugu soo halkan aan beeraha ahayn baa laydin banaynayaa ee beeraha uga kaxa dadka la yidhi oo jeer ilaa ay haddana wax tallaabo oo ay ka qaadeen ma jirto. shacabkii iska lahaa beeraha qaarkood ma la hadashay adiga? ma la kulantay? ma kuu soo gudbiyeen dacwadooda? waa la kulmay, waana la hadlay. qaarkood waxay qaxootinimo ku yimaadeen sanadkan magaalada baydhabo oo ah rag dadkii ka soo baxay ilaa iyo qansax dheere xilligii abaarta jirtay. haddana
xilligii roobab ku yimaadeen oo magaalada roobkada siil bay dhagay joogaan iyagoo ku cabanaya inaysan haynin beer ay u noqdaan oo tabcadaan halka dad kaloo fara badan xilli roobaadkii ama roobku ku yimid ay beerahoodii dib ugu noqdeen ama ay aadeen inay beerahooda tabcadaan marka goobtaas goob istiraatiiji oo iska difaaci karaan miya istiraatiijiyada ay iska difaaci karaan keliya waxay ugu noqon kartaa ama hadda iyaga aaminsan yihiin waa dhul banaana oo beerihii dhul beereedka waa taqaanaa ilaa dhowr boqol mitir ama ilaa dhowr kilomitir oo banaana weeye 180 beerood oo yaraan waxaa laga yaabaa inay yihiin 30 ilaa 40 kilomitir square oo banaana marka waxay aaminsan yihiin ama ay leeyihiin dhulkan waa dhul banaan oo meelna loogu soo gaban karo ma ahan shacabkuna waxay leeyihiin beerahan waa u baahannahay inaan tabcano dhanka bariga wadada ka soo gasha ama dhanka wadada awdiinle oo aan dhul beereed ahayn ayaan idin banaynaynaa ama aan iska caawinaynaa saa ku degi lahaydeen marka meesha dega dhulkan deegaankan aad ka dhigateen oo beeraha noo baneeya xasan cabdinuur waxa uu ii sheegay in beeraha maqan ay dhibaato culus oo nololeed ku hayso dadka deegaanka waa garan kartaa qof beerta uu falan jiray ee dalagga uga soo go'i jiray laga degay ee aan access ama awood u lahayn inuu beertiisii tabcado xilli roobaadka 180 beerood uu yaraan waxa ku noolaa 360 ama ilaa 500 oo qoys oo qoyskiiba laga yaabo inuu ka kooban yahay 6 ilaa 7 qof marka meesha waxaa garan kartaa ku dhawaad 3,000 oo qof inay ku tiirsanaayeen beeraha dalagga ka soo go'a dhibaatada ka haysataa waa wada dareemi karnaa 500 oo qoys beerihi ay ku tiirsanaayeen ama dalagga uga soo go'i lahaa oo qoys walba ka kooban yahay ilaa 5 ilaa 7 qof 3,000 ilaa 3,500 qof baa meeshii ku raashin la marka abaaraha wadanka ka dhacay marka laga soo gudbo xilli roobaadkii dadkii beeraha iyaga laga haystay weli awood u lahaa inay beertoodii tabcadaan marka dhibaatada intaa ka weyn ee ka soo gaari lahayd maba garanayo aniga marka ma la soo qaaday arrintan maadaama xildhibaan federaalka tahay maamulka gobolka koonfur galbeed ma la soo qaaday dowladda ma la soo qaaday baarlamaanka ma keentay weli ma keeni laakiin waa in qorshaysaya baarlamaanka inaan geeyo oon kasoo bilaabo maamulka gobolka maamulka heer maamul goboleed hadduu ilaahay idmo waana la wadaagaya insha allahu tacaala waana arrin muhiimadeeda leh oo dhibaatadeedana ay weli dadku hayso aadna u saamaysa maxaad ku talin lahayd in la sameeyo waxaan ku talin lahaa ama aan ku baaqayaa in la sameeyo ciidamada walaalaheena amisom inaan la shaqayno aata deegaan ahaan diyaar waanu nahay laakiin waxaan jecel lahay in deegaanada ama beeraha ay dadka kaga fadhiyaan ay baneeyaan oo ay degaan magaalada dhankeeda kale oo dhul beereedka ahay shacabkuna wuxuu diyaar u yahay wax walba oo ay u baahan yihiin in laga kaalmeeyo si ay u degi lahayn ama relocation loogu sameeyo inay ka caawiyaan ciidamada amisom ayaguna waxaan ka codsanaynaa ama ugu baaqaynaa inay shacabkaas dhibaataysan ee abaaruhu waxyeeleeyeen ay beerahooda u baneeyaan si ay beerahooda ugu tabcadaan dhegaystayaal haddii aynu mar kale isxasuusino halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee voice of america barnaamijkuna waa barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aynu ku eegayno dhibaatada haysata qaar ka mida beeraleyda gobollada baay iyo shabeellada hoose kadib markii beerahooda ay saldhigyo ka samaysteen ciidamada nabad ilaalinta ee midooda afrika aynu u dhaqaaqno dhinaca gobolka shabeellada hoose ee deriska la ah gobolka baay gaar ahaanna deegaanka ku xeeran magaalada qoryooley oo caan ku ah beeraha mid ka mida beeraha ugu caansan uguna ballaaran ee ku taalla deegaanka waxaa iska leh qoys deegaanka aad looga yaqaano 4 sane ee ugu dambeysay waxaa beertaasi dhex deganaa ciidamada amisom ee ka socda dalka uganda cabdiqani beynax bare oo u hadlay qoyska beertaasi iska leh ayaa iiga warramay sida ay beerta ku soo degeen ciidamada amisom anagu meesha ma joogin laakiin dadkii beerta noo hayay waxay yidhaahdeen meeshii amisom baa soo degtay iyagoo ruqsana waraysan loomana geli karo looma tegi karo qofkii tego waa naftiisu ku waayayaa bay yidhaahdeen marka wax nagala tashtay iyo wax codsi la weydiistay toona ma ahayn intee bay leegtaa beertu waa 100 hektar wey 100 hektar hay oo ku taalo afaafka webiga shabeelle oo qoryooli meesha laga galaayo bridgeka maxaa ka bixi jiray beerta markii ugu dambeysay ama hadda maxaa ka baxay beertu waxay ahayd beerta nooca loo yaqaano dairy farm oo xoolahana lagu dhaqo waxaana nagu xariisneyd noocan la yiraahdo saxawel katalka oo noocan india oo caana lahayd waxayna ahayd 717 neef oo marka la qiimeeyey noqonayay ilaa iyo 420 kun oo dollar 707 neef beerta waxaa kaloo ka baxayay waxa weeyaan geed mirood kuwaasoo u kala baxay
baxayay haddaan inaan kuu sheego waxaa ku oolay beerta 2420 geed uu isugu jira liin dhanaan iyo liinta barbeelmada loo yaqaano waxaa kaloo ku yaalay meesha geedaha cambaha loo yaqaano waxaa kaloo ku yaalay geedaha yiraahdo guwaaba waxaa ku oolay oo kale 120 sanduuq oo ahayd shinnida malabka dhasha beertu waxaa kaloo ay leedahay dalagyo isugu jira galley digir sisin lows maxaa la yiraahdaa yaayo waxaa kaloo ka bixi jiray cooskan lo'da laga iibiyo ay cunto lo'da marka intaasoo dalaga iyo waxaa ku yeelay beerta intaasoo lo'a waxa uu ii sheegay cabdiqani in xataa haddii ay xilligan ka guuraan beertaasi ciidamada amisom uu soo gaaray khasaare ballaadhan oo dib u habeynteeduna ay adkaan doonto amisom maadaama ay meesha saldhig ka dhigteen ayagoo ka qotay meesha godad dhufaysi ah waxaa loo baahan doonaa waqti dambe in waxaasoo dhan dib loo dhisa haddana oo dhulkii uu noqdo dhul ku haboon beero maxaa jira dhul lagu dagaalamayay oo dhufaysi laga qotay dhul beereed ma noqon karo marka dhulba ay waaye wax haddana sabca maaha meeshii wax sacdo haddeer ka jiro ma laha waxaan kuu sheegaya geedmaroodka iyo dalagyada meesha ku baay waa wax inta ay deganayeen ba ay waaye wax taagan haddeer oo la intifaacsado ama meel ay xoolo loo dhaqaan ma laha waxaa jira intaan hubkooda iyo ayagoo waxooda wato markay soo galeen meeshii waxaweyaad meel ay loo joogi karta ma ahayn marka 4 sano ay meesha degan yihiin haddaan qiyaaso marka waxa nooga baay intaas waa intaan ognahay waa garta geedihii iyo maxaan ku dhaha dalagii kale ku yaalay ma taangiyaa la marsiiyey mise maadaama dee daryeel la-aan bay u baabeen daryeel la-aan bay u baabeen mideeda kale meesha ay dhufeeshada ka qodanayaan buldoos bay marsiiyaan mugta way xaartaan mideeda kale waxay ka dhisteen meesha dhufeesha waxay diidayaan in lagu siday sheegeen way iyaga diidayaan in lagu soo dhuunto maxaa jira waa loo tegay waxaa dhulkan annagaa tabcanayn marka taa ma jirta yara saacad iyo waxaa ka fogaada meeshaan marka way baneeyeen cagafay geliyeen dhulka way baneeyeen cagaf bay geliyeen waxaa jira waxay diidayaan meesha in lagu soo gabadaa la yiri meesha aad bay noqotay dagaaleed marka waxaa jira wax la yirahda collateral damage wax la yiraahdaa dhaco ah iyagu dadkan maadaama ay howlahooda u socdaan operationskooda hadda dhulka ay degayaan waxay ka dhigtaan meel ku haboon iyaga dagaalkooda meeshu meel geedo badan oo duura ahayd maaragtay yani geedo maaragtay lagu soo gaban karo waa ogyihiin maxaa jira cambaha iyo haddaad aragtay waa geedo waaweyn marka way banaysteen wixii way xaaqi karaan way xaaqeen laakiin dhufeeshada laga qotay iyo wixii marka qaarna waxay u baahan waxa kaloo ku sheegay geed maroodka keliya maahane wixii digirtii iyo markaa abuurnaa sisintii iyo galeydi kuwa hadde waaba bas bay noqonayaan maaragtay mar haddaan la dayac tirayn oo aan la dhaqaalaysanin 2013 wixii ka dambeeyeyna wax dalawa ka soo galay ma jiro wax anaga naga soo galay ma jiro wixii horena waa nooga been xitaa xoolaheenii baa ka haaday meeshii oo xitaa qolku abaarta jawaab hore xoolaha beertan ku haysan jirnay biyay lahayd baad bay lahayd laakiin haddeer waxaasoo dhan ma jiraan xoolihii 717 neef boqol iyo waxaa kasoo hartay baan u malaynayaa haddeer 30 keliya inta gacanta lagu hayo dalagan kuu sheegayey ee geedmaroodkan kuu sheegayeyna dib dambe ma laha laakiin dhibka kasii weyn waxay tahay waxa waaye oo aan raba anigu in la ogaado in saldhig markii ka dhigteen meesha ay qoteen godad iyo dhufeysyo adugu haddaad tahay maaragtay weriye waad tegi kartaa haddaysan kuu diidin oo sawiradooda waad soo qaadan kartaa oo u baahan doono waqti dambe in loo saxo godadkaas oo la hagaajiyo oo laga dhigo meel wax laga tabci karo laakiin maanta haddii dariska guraan tacab dambe ma lagu noqonayo meeshaas ilaa la geliya hanti kale cabdiqani baynax barre waxa uu ii sheegay in xubno ka tirsan qoyska ay la xiriireen ciidamada amisom loona sheegay inay la xiriiraan dowladooda dad walaalahayaa baa la xiriiray waxay noqotay maaweero maalinkaas ilaa haddeer ay leeyihiin maaragtay waa iyagu meeshu waxay leeyihiin dowlad baa leeyihiin dowladdiina la hadlo laakiin anigu waa ma garanayo dowlad lala hadlo maxaa jira dhibku qolada geysatay anagu waa naqaanaa dhulkeena waa meeshii dadkii weli waa degan yihiin laakiin wax jawaaba waan ka helnay oo haddaan ku sheegi karo officiala ma jirto marka xoolaha haddayna ka maqan yihiin meel kale u raadsada taasay ku yidhaahdeen iyagu askarka meesha joogto
intay beerta tagaan oo at least ma soo arki karaan dadka meesha jooga beertii iyo xaaladeedii ma soo arki karaan soo inay wadada meel laamiga weyn oo baabuurta marto hadday ku socdaan way arkaan inay dusha ka arkaan haa laakiin meesha guryaha ku yiilay aan ku sheegay oo waxaan ku iray ilaa 60 mayl anigu aan caqli ka soo yeeshay beerta beer noo ahay marka ma tegi karaan uma dhawaan karaan meesha lafooda ugu baqeen markii lasoo handlay had mana ahaate wax oo waxa joogta ah way marka wadada kore oo beerta marto baabuurta weyn maraan inay ka fiirsadaan maahane weji ka weji uma dhawaan karaan ma tegi karaan iyaga meesha maxamed xaaji cismaan shigshigo waa guddoomiyaha qoryoole oo yaqaana beerta baylax barre oo ay saldhigga ka samaysteen ciidamada Uganda waraysi dheer oo aan la yeeshay qodobada aan wax ka weydiiyey waxaa ka mid ahaa sababta ay ciidamada AMISOM u degeen beertaasi hadda beer AMISOM ay beerdad ay dhexdhigin tahay ma jiraan laakiin beerooyin oo waa si degmada u dhow oo kale ama meesha ay degi lahaayeen markay waa si amniga ay degmada ay u dhaariyaan oo shacabka u ogolaya dadweynaha beer ay xoog ku haystaan AMISOM hadda ma arag ma iyagu ama xooga ku haystaan ama iyagu ku haysan laakiin beerta baynax oo kale ee qoryoole afkeeda soo ciidanku ma degana horta beerta baynax waa beerta degmada qoryoole ku taala magartay sax marka beertu waa isku weyn tahay intaasoo kilomitir waaye marka aduu AMISOM beerta afkeeda hore degan tahay mooye beerta baynax ay AMISOM kawan degana magartay waa gartay laakiin dadka beerta iskale waxay dhaheen ma beeran karno agtooda xataa ma mari karno sababtoo ah waa goob ay ciidan degan yihiin beertaas ciidankaas meesha degan waa nabadgelyada degmada ayay halbowle u tahay haddaysan ciidankaas meesha deganin shacabka qoryooley ma shaqaysan lahayn lamada dowlad lahayn degmada qoryooley maamul dowlada uu leeyahay ama oo dowlad ahaan hataa inta uu shaqaysan karta lama garta laakiin ciidamada dowladda AMISOM deegaankaas qoryooley laba meel ka deganaayeen magaalada qaybta waqooyi qaybta koonfur hadda anigu u maleemaya inay hadda beer shacab leeyahay ay AMISOM haysato iyagu way nala soo xiriireen beertu waa sidaas sheegtay aad ba u weyn tahay liin baa ka baxaysay dalag kalaa ka baxayay xoolaa ku noolaa maxaan ku idhahdaa meeshii marka hadduu ciidan dego ciidankiina rag kale iska soo horjeedaan shabaabka marka goob dagaal bay noqotay meeshii saasay iyagu ku doodayaan beertii horta wax liina ama khudaar ka baxa diraaso maba jira ma garata waa gartay waxba kama baxdo waa ugu tiiri beeraha khudaar ka baxdo beer ku sheegay liin kuma yaalo beertu waa ballaaran tahay dhinaca AMISOM ay ka degan tahay waa wadada laamiga oo qoryoole iyo camal oo ismaata ma garata waa gartay marka beerka ma haysato AMISOM aan beer baynax bare haddaan ana u maleeyahay haddaan la xiriirsa sida ay ku hadli karaan laakiin waa uu warar been abuur oo kusoo qoteeray markada baynax bare waa dad yaqaano oo askari deegaanka oo yaqaano oo qoryoole ah oo sharaf iyo wanaag degmada oo qofka ay ku leeyihiin ma garata waa gartay laakiin dadka deegaanka qoryoole la hadalay waxay leeyihiin beerta baynax bare ciidamada AMISOM baa degan fiir hadda haddii lagu yiraahdo oo shalambeed ay ciidamada AMISOM degan yihiin meesha oo hotel safari macnaha hotel safari shalambeed waa calaamad magaca mooyaane hotel moo degan Soomaaliya waa gartay marka beerta baynax oo dadka ay leeyihiin waa baynax bare meel u dhow ama meel oo afkiisa hore waa baynax bare beertiisa oo dhanba AMISOM mana haysan doonto reer baynax bare dad oo la yaqaano waayo oo zaciima reer qoryooley askari ah oo la yaqaano awoowayaasha iyo abayaasha soo dhaqmi jiray dad hadda oo qoryooley hadda oo magacay la socod ku leh waayo xoolo ku leh hanti ku leh anigu lama ahayn reer baynax kaas tahay laakiin waa shacab qoryooley hadda sidaan waa dad oo ujeedka leh magarta waa gartay laakiin dad kale maaha baynax bare cabdiqani baynax bare ayaan la hadalay wuxuu yidhi beertii ciidamada AMISOM baa haystay haddana ma aha sidii qoryoole loo qabsaday 4 sano iyo ka badan bay joogaan beertii lama tegi karo goobtii waa goob dagaal lama beeran karo midda kale wuxuu sheegay beerta qaybo ka mid a in cagaf la geliyo carro la tuuray oo difaac laga dhigtay marka macnaheedu marka AMISOM qoryoole halaga ramiya markaas
isaga beer buu ku leeyahay waa qof shakhsiya marka amisom inay meel kala degta maysan kula habboonay guddoomiye adiga ma fiiri haddii yidhaahdo meel kasta hebel baa iskale ama anaa ama suhdintaydu ama anaa u dhow marka amisom maxay kaydoysaa amisom marka haddii beertii ay u adeegsanayso arrimo amni waa laga yaabaa inay arrimo amni iyo xeelad dagaal inay u degto beerta laakiin dadkii iska lahaa in magdhow la siiyo sowma iyo beertii wixii uga soo bixi lahaa oo loo qiimeeyo lala kulmo 10 jeer buu qoriyay mid in bayna baraan waa kay xamar waa ku aragnay arrinkaas inuu sheegay arrinkaas aran oo admuudin in oo aran oo sheeka admuud quraan waayo amisom markay leedayso ama ciidamada military hadaa saaka military emergency haduu yiraahdo meesha dega oo yiraahdo anaaska lahaan jiraan laan jir amniga dadna oo baahan yahay marka amisom ma hawsare ma diray hawsare arrintu waxa weeyaan sidee loo xalinayaa oo dadkana beertooda ay ku heli karaan si ay u qotaan amisomna hawshii loo soo dirsado u qabsan karta adoo marka kala saar marka say amisom ay shaqada u qabsan karto iyo heer bayna cabara dacwa adoo afsirin heer bayna cabara dacwa maaha heer bayna cabareen amisom kama digana mana ka haysato amisom dan guud oo qaran oo shubaxay heer caalami ah qof hadduu heer caalami ah ku imaado inuu meel dego marka oo dushiisa magaalada guryaha dushooda degi maayaan cidkan degi maayaan maga degi lahaa sooma waa gartay laakiin xeerka caalamigu wuxuuna waa wadayga afkiisa wey wadayga hortiisa wadayga waxba uma jiraa iyo xaaskii ayada iyo amisom waa wasaaxayba ma gartay waa gartay xeerka caalamiguma waxa u dhahayaa ciidamada nabad ilaalintu beer gaara oo hanti gaara oo qof gaara leeyahay weeyaan hala qabsado hala dega miyuu leeyahay xeerka caalamiga waxaas qabsasho waxaa la leeyahay beer nin leeyahay oo nin kale ka qabsay oo weligiis iska haysa tacbanaya laakiin amisom waa ciidamada nabad ilaalina inay dhul qabsadaan ooma imaan in soomaaliya garabsiya ay u yimaadaan sooma waa gartay marka haddii soomaaliya garabsiin ay u yimaadeen ay magaalada meel ay ka degan yihiin idii tiraada marka oo beerta laga haystaa iyo ama beerta u dhow hal mitir gudaha loo soo gaayo waa in kule macnaheedu waxa waa in kule amisom ha baxdo oo dawladda soo jeeday beeralayda gobolka baay iyo kuwa shabeellada hoose waxay ka siman yihiin inaan magdhow laga siinin beerahooda maqan iyo noloshooda burburtay xildhibaan xasan cabdinuur waxa uu ii sheegay inuusan ka hadhi doonin ciidamada midowda afrika ilaa magdhow uu u helo dadka uu matalo ee danyarta ah wallahi shacabka hadda cabaraya magdhow ma weydiisan weli keliya waxayba taagan yihiin beeraheenii hana noo baray aan tabcanne magdhowna inay weydiistaan xaq bay uleeyihiin waa because waa garan kartaa 2012 ilaa iyo hadda muddo 5 sana beer aan la tabcan ama qof beertiisii la deganaa inta xuquuq ka maqan waad garan kartaa xaq bayna uleeyihiin in la siiyo xuquuqdii meesha kaga maqnay waa gartay adigu maadaama sida la ii sheegay deegaankaas aad wakiil ka tahay baarlamaankan aad ku jirtid ma u raadinaysaa xaqa iyo magdhowgaas inay ka helaan amisom iyo beesha caalamka iyo cidda damaanada bixisa ciidamadan amisom inay ka howlgalaan waddanka waa ku qasbanahay waana mas-uuliyad i saaran inaan u raadiyo because dadka beerahaas laga haysto waa shacabkii aan xildhibaanka u ahaa ama aan matalay amisom iyo beesha caalamka iyo united nationkaba waxaan leeyahay ama aan diyaar u ahay inaan uga raadiyo magdhowgii shacabkii beerahaas muddada 5 sanaa laga hayay dowladda soomaaliya federaalka iyo dowladda heer gobol maxaa uga aadan arrintan waxaa uga aadan mas-uuliyad baa ka saaran inay kala hadlaan amisom iyo ciidamada amisom ee deegaanka degan sidii shacabkaas beerahooda looga banayn lahaa kaalintii mas-uuliyadeed ee kaga aadanayna waa inay kasoo baxaan ay gutaan bacdamaa shacabka cabanaya ama shacabka beerahoodii la degan yahay ay yihiin shacabkii iyagu dawladda u ahaayeen cabdiqani baynax barre isna waxa uu ii sheegay inuu sharciga caalamiga ah ee qaramada midoobay la tiigsan doono ciidamada amisom haddii ay xaqooda waayaan waxa uu sheegay in khasaaraha soo gaaray uu la egyahay malaayiin dollar adduunka qanuun baa ka jira haddii ay dhacdo xitaa danguud in loo qaato hantidaada magdhow waa la siiyaa dadka anigu hadda intaan ku qiyaasay oo aan ogaanay dhibaatada naga soo gaartay ilaa 5 milyan oo dollar waay waxaa jira dhulkan waa dhul la tabcan jiray ilaa iyo 60 meeyadiisaan kuu sheegay horaanteed
laakiin dibka noogu sii daran waxay tahay waxaweye waxaay waadan ku intifaacsan karin maalinkan maanta maxaa jira dad baa beerahoodii ijaarto oo dad baa qota anagu mana qodan karno wixii yaalayna waa la bixiyey marka waxaan u sheegaya waxa weeyaan haddii soomaaliya aysan amisom xaq dhowrin qaanuun ka jiro hadde qaanuunka aan weliba ugu baaqayo waxa weeyaan qaanuunka adduunka nooga dhexeeya waxay joognaa maraykan maxkamadaad ka jira marka waxay ii noqonaysaa fursad aan ku tagno haddaysan rabin inaanu maxkamad tagno waxaan rabnaa wixii xuquuqdeena ah inay aqoonsadaan marka horeysay inay dibkaan geysteen inay magdhow naga siiyaan dibkii ay geysteen haddaysan taa iyagu yeelin waxaanu ka furaynaa daawad meeshan new york waxaan haddaba xiriir la sameeyey howlgalka nabad ilaalinta midowda Afrika ee AMISOM waxaan la hadlay afhayeenka ciidamada AMISOM Wilson Rono waxaana weydiiyey hadal kooban oo ah in AMISOM markii ay meel degayso aysan ku degin si kama ah balse ay wadatashi la samayso maamulka deegaankaas waxaa la tusaa ayuu yidhi meesha ay degayaan ee ay saldhigga ka samaysanayaan waxaan ka codsaday Wilson Rono waraysi intaasi ka dheer si uu uga jawaabo su'aalo kale oo dheeraad ah oo ay ka mid yihiin sababta ay u degi waayeen saldhigyo kale oo ay iska difaaci karaan maxaa dadkan magdhow looga siin waayay beeraha ka maqan maxaa loola kulmi waayey si ugu yaraan loo siiyo raashin u bedela dalagii u soo go'i lahaa iyo kuwo kale Wilson Rono waxa uu markaas kadib igu xiray 2 sarkaal oo kale kuwaas oo aan weli ka sugayno inay ka jawaabaan su'aalahan iyo walaac ay qabaan dadka beeralayda ah ee gobolada Bay iyo Shabeellada Hoose